بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بام هذا سكاله هل كان نشوفنا هو الضحى حدون مقعيق عبد العزيز عول عاتية كمدة odayaasha degmada xudun kamida baan ahay waxaan rabaa halkan inaan galabta ka hadlo arinta laascaanood si gaar ah waxaan u salaamayaa isimada odayaasha jamaahiirta hablaha dadka ciidamada SSC xaquudirirka dhamaan waan salaamayaa salaanka bacdi runtii waxa ka dhacay laascaanood iyo qaabka ay u soo dhignaayeen 15 sano ee laascaanood la haystayba way jireen marba heer bay taagnayd anigu waxaan ahay dadkii runtii mar walba ka soo horjeeday arintaas Soomaaliland iyo maamulkeeda laakiin xilli aan ka jawaabo ma hayn galabta oo Ilaahay mahadiis dhulku xor yahay barwaaqo ay tahay si gaar ah wariye Maxamed uu ii wareysanayo kawte aad baan horta marka hore ku salaamaya adiga iyo warbaahintaada kahnayus waxaan leeyahay jazakallahu khayr hawl wacan baa dadka u haysaan aad baan ugu faraxsanahay inta ka bacdi runtii waxaan rabaa inaan ka hadlo salaanta ka bacdi dhibaatooyinka ka dhacay iyo waxa ay ka wadaan SNM iyo maamulka Soomaaliland runtii xalay waxaan maqlay oo igu soo duulay nin maagaya garaad jaamac garaad cali oo ku diraya garaad jaamac garaad Ismaaciil ama isku diraya dhulbaante xaaladdu waxay maraysaa in dadkii la isku diro walaalaha ahaa ee halgan ku wada jiray garaad jaamac garaad cali waa garaadka guud ee dhulbaante waa halgamaa weyn oo halgamay oo haliyay ah filinkaasi waa filin gubtay oo la daawaday cid isku haysa laascaanood iyo cid dan kale in la isxoreeyo mooyo ma jirto wayna xoroobaysaa aad baan waxaan uga xumaaday hadalka ah labada garaad iyo raggii meesha joogay oo hadeer heerkii uu marayo rafadkii ugu dambeeyay in la yiraahdo maxamuud garaad ficiis garaad hebel baa haysa war cid is haysa ma jirto garaadadaasi waa halgamayaal hubkay sitaan dadka meesha jooga oo dhami hubku sitaa ciidamada dumarka waxaana la is wareysan doonaa taariikhdu is qoraysa marka ciidanka SNM meesha ka baxo inta ka bacdi waxaan rabaa galabta inaan ka hadlo 2015kii dooxadan xudun anigoo jooga ayaa waxaan soo dulmaray waxa yimid niman Soomaaliland xilliga fidmada ay wadeen ayaa maanta taagan aniguna xilligaasan ka sii hadlay xilliga waxa jiray 2015kii waxa halkan yimi wafdi agaasimayaal wasiiro dad siyaasiyiin ah oo la adeegsaday oo ka soo jeeda deegaanadan oo yiri waxaan wadnaa hay'ad la oran jiray DNO oo tuuga ah oo Norwegian lafteedu ah iyo Soomaaliland wax isku shubtay waxaan wadnaa baloogyaan baaraynaa macdan iyo shidaal ah diyaarada jawi hoose ku duulaya baan idin keenaynaa raggii loo diray odayaashii halka maalinta loo diray baan kamid ahaa nimanka markaan wada hadalay waxaan ku niri diyaaradahaasina soo dulmari maayaan markiiba waxaan aragnay inuu boob iska tahay iyo dilaalnimo aan wax kale ku jirin dabadna waxaan ku nirina dulmari maayaan sinaba noo dulmari maayaan waxa la yiri marka waxaan samaynaynaa bal dib aynu u dhigaynaa oo dib aynu uga wada kulmaynaa waxaan u soo qaadanayaa maansa aan maalinta ka tiriyay baan rabaa galabta inaan halkan ka sheego oo wixii aan maalinta ka hadlayay baasi kaleera u taagan subaxdii labaad baa la soo daayay buurahan iyo dooxadan bay soo dulmartay xoolihii iyo dadkii iyo wixiiba halka burbur baa ka dhacay wala iska dul dhacay waxa jiray markaa qoriyo dadku leeyihiin oo lidka diyaaradaha oo dukaama xilliga ahaa oo dadka lacag lagu siinayo meelaha taagtaagnaa qoriyihiina markii loo tagay waxay yidhaahdeen anagu Soomaaliland baanu lacag ka qaadanaado waxba ma sameynano akayaal iyo faalal iyo hub yarar baa la orday wixiina waa diyaarad halka khasaaro badan baa ka dhacay oo ay geysteen maamulka Soomaaliland xoolo jajabay dad ciyaal sasay ila diyaaradii baalkay dhigatay halka markay mareysay aan waxaan ka tiriyay maansada ma aan qiimayn oo xilligaas xillu dadku beleysnaaba markaan arkay dadka qoryahoodii oo la haysto markaan arkay khiyaamadan ay isku raaceen Soomaaliland iyo hay'aduhu markaan arkay ninkii qaranka Soomaaliyeed burburiyay oo Muuse bixiyo wixii la halmaalo oo maanta doonaya dad inuu isagu gumaysto
maansadu dhammaan way taabanaysaa waxaan kaloo ka hadlay xilliga tahriibaa socotay oo dhalinyaradu way tahriibayeen Liibiya iyo dhul bay u tahriibayeen dadkii oo tahriibaya iyo dalkii oo lagu soo duulay oo la rabo in la qabsado oo shidaalkiisii iyo la dilaalo intaas ay isu kay qaban weyday